درسة واد نورسة هبلات وهرسة وعذف وعدريالك نلشيدا دوكسي آن كنا لادو نفقيو تريالكيكا ونارور الليتوري ونارور الليتوري waliba midu dumar calmaday way cudun tahay ama taaqadan xuriyon awabaasteyo waxa jacaano jacayl mala santos قاعد فيه السلام عليكم أدنى سلامي سومالي وين ميلبا جوجتان هذا حوغا تلفونadii la jam garowo hala baafin gabadheeda xanasan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك تكتب ولالكي كبير محمد نور وهرب أمانتينا تفافلو مقال كانت صد دعوتين فرحية فيسكا مالين وذا المقال كسو دياريي دادكا مركي كل دقين أيار وحان أنو سيريسي قلبية له وردادكا أنو وحي مانتي دي دايهين ويلكا بيلها لقيت ترب داي هاي جبدا قورسدي دي دايهين أنيقون باريتان بدن سماين وأن آد باريتان وسماين أيار مقال هورو صد دوبي مقالكا horta raaligelin baan ka bixinayaa muuqaalka raaligelin baan ka bixinayaa maantay dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan ayaa muuqaal la ii soo diray waxay soo wacay fanaaniin ciidan ka badan dad badan oo farxiyo xitaa walaasheed bay soo wacday waxa la ii xaqiijiyay waxa la sheegay in wax ka jiraan anigu ka kaba yarahan sicir kuurta waa wax jira laakiin saa uma aaminsani anigu saa uma aaminsani markii muuqaaladii la ii soo diray aan dhuuxay aqliyan aan u fiirsaday u dhabagalay raadiyay xitaa yagii wacay waxa la sheegay inay run yihiin ay soo baxday qodobo badan aan ku hayaa farxiyo waa horta waxa ka dansan korontada ka maqan waxa shaqaynaya ee dhaqdhaqaaqaya bal u fiirso fiiriya waxa ordaya gacanta taagaya aktiifka ee maaragtay maskaxdiisu aad u shaqaynayso waa asaga ayadu roob baa ku daay korontada ka maqan siday u mahsatahay laba qodob baan waana siri markii baaritaanka hore aan sameynayay intaanan fanaaniinta la hadlin mar waxaan siri farxiyo ma ehlu marqaana oo mahabiikii markay qayisho ayaa subaxii muuqaalada laga duubaa iyadoo qaadiraysana laga duubaan siri laakiin been bay noqotay dad badan baa soo wacay fanaaniin badan baa la hadlay waxaan fiiriyay loojig ahaan muuqaaladeeda wajigeedaan fiiriyay farxiyo anigu aqoon baan leeyahay 3 maalmood iyo 3 amiin ayaan hal weel wax ku wada cunaynay oo dabeecadeeda waan aqaanaa gabadhii aan aqaanay ee shaxshaxda ahayd ee kaftanka badneed ee furfurneed maaha sibay u dansan tahay korontada ka maqan hal nus baar buu ku dhajiyay ninkaas waxa la sheegayo wallaahi waa runaan in xaqiijinaye maantay farxiyo dhalino kuma yara iyadoo islaam weyna oo inta la eg waliba dadka xishoodka badan ee farxiyo ahaade inuu maanta wiilkaas lugaheeda dadka tuso futadeeda dadka tuso aw xambaaro cunug yar oo ayada dhali kara saa u wareejiyo raallina uga taysa ka sariigan wallaahi farxiyadan aqaana maahan aniga oo kaba yaraa oo nin weyna oo odayay farxiyo waxay dheeysaa habar yar cunuga yarka gabadha waa qodbay wallaahi waa qodba waa dhaaranay kitaaban maanta gacanta u gali kara sababtoo ah iyo had ila dhuuxdaan oo ila fiirsataan wajiyadeeda ila fiirsada wajigeeda hal mar ila fiiriya siyaas ayada dhan
asagu marka dadku inaysan dareemin gabadhan in wax ka maqan yihiin ayuu wax kasta oo dadka ku qaldi karo sameeynaya dhaqdhaqaaq buu sameeynaya wuu ordaya wuu qabanaya dhexdoo ka qabanaya gacanta ka qabanaya asaga shaqeynaya iyadu laakiin waa dansantahay asagu jeedka marka uu nuuxnuuxsanayo waxa weeye dadku gabadha ay dareemin wuu naqaldaya anagu ma xaqliga allaanahay ayadu inay gacmaha taagtaagto maxaa diiday ayadu inay cuntadan soo qabsato maxaa diiday ayadu inay asaga garabka qabsato maxaa diiday asaga wata sheekada wixii oo dhan asaga isku ah waa de romantic asaga isku ah asaga ayadii soo qabsanaya ayadu waa korontada ka maqan wala bala wadan santa hadii halka loo jiido u jiidmaysa xagga hadii loo riixo u ruxmaysa madax hadii la soo qabto way soo taaganaysa gacanta hadii la soo qabto way soo jiidmaysa maxay tahay waxaas war adigu ma aqli allaaliin war gabadhan wiilku waxba ku qalday wuxuu siiyay anigu ma aqaane gabadha wiilku waxba uu siiyay markii hore waxaan siri meesha jacayl baa ka jira gabadhu waa gabar xoogaa ninkii hore u weynaatay wiil yaro 20 jir oo waxa yeeshay 20 jir ka adag bir soo loo dhigi jirin ayay yeeshay wixii haysataa marxiya inta badan waxa la og yahay ragga sida dharkay iskaga bedeli jirtay waligeed min hal sana ma qabin cusubsi ma taqaana way cusubsan jirtay maanta marka cunug yaro 10 jira inay ag fadhido dhowr iyo 10 jira inay ag fadhido oo asagoo active yahay oo asagu wax kasta sameeynayo war waxaan anigu intaana la yaabana waxaan la yaabana ninkan asagu dhaqdhaqaaqaya asagu saas sida marawaxadii ninka saa u wareegaya sida marawaxadii ayada ku taas ugu dul wareegaya ee ayaduna ay iska fadhido ay saas iska raamso ma maqashay iska raamsanaysa sagiiba marka shaqeynaya dhag anagoo naqaldaya anagu aqliga malihin war dad Soomaaliyeed baynu nahay waanan u jeednaa waxa aad sameynaysid qaacin baan na tahay bala doo fiirso siciroola tahay gabadhan dad bay ka dhalatay gabadha dad Soomaaliyeed baa jecel annaga taageerna annagay gabadhanadii tahay qodobkan aad ku dhajiday iyo misbaarkan aad ku taagtay gabadha ka fujubaan ku leenaa qaacin baa tahay siciroola wallahi waad sixirtaan ku sheegay war ma farxiya 40 sano jirta islaan 40 sano jirto cunug yaro oo ninka la 15 jira asagoo ha shaqeeyo dhag sida maraxadii haduu dul wareego ayaduna iska raamsato waxaas cud yeelaysa male annaguna aqliga maliin wiilow fanaan Soomaaliyeed tahay waynu ku ixtiraamayna walaalkana tahay laakiin walaalku ma nihin inaad maantay fanaanada intaad qodob ku dhajidid adigu sidaa rabtid aad ka yeeshid anigu waa wacay kaba yar ahaan laba ilbiriqsi mise 3 ilbiriqsi markay ila hadashay inaan cod ka duuban doonayay oon waraysto oon ku gaado been ma sheegaye laba ilbiriqsi markaa wareysanayo soo qayliya asagii hebel soo galay qam wala igu dashay mubaarak baa soo galay qam baad u fiirso waa ku celiyo waa laga qabo waay wallahi gabadhaas waa qodbantahay gabadhaas maanta kitaaban gacanta ku gali karaa inay khudban tahay Soomaalinimo haday jirto reer Hargeyso meesha wiilka iyo gabadha isku dhowranina xog ogaal baatiin dadka reer Hargeysana waa dad aragti dheer waxna ma qariyaan laakiin ilaa hadda waxay la aamusan yihiin dayno Soomaalinahay anagu waa garalaana reer Hargeyso gabadha ninka in la joogtaa waxa igu maqaalaa dad familkeeda inay raajeen markay saa Hargeysa uga tageen bawla cararay barbarow kala dhacay barbara saa markay u tageen burcow kala dhacay war gacantooda iska istaaba meeshii oo roola aadaya familkeedii baa saa ugu raad jooga waxa marka soo raadiyay meeshoo galaba way ka daba galayaan meeshoo tagaba waa ka daba tagayaan waa si cararaya waa ka ayadu maxay tahay mariba ma la iska wataa war gabadhu waa war gabadha noodhig war gabadha dhig Soomaali hadaynu nahay waan kugu dhaganay noodhig gabadhanada waxaan anagu dhowran mayno hadaynu Soomaalina waxaan anagu dhowran mayno hadaynu Soomaalina reer Hargeyso magac inta uu idin bixi lahay waa bari gogol idin dhigan lahayn gabadha wiilka ka qabta taas Soomaalinimo maaha walaalnimo maaha tolnimo maaha gabadha wiilka laga qabto ugu dambeyntii halkan dardaaran waxaan uga jeedinayaa farxiyo haday codkayga dhageysan doonto walaalay waad sixran tahay is daba qabo ninka ka dhuumo
waad sixran tahay ninkaa ka dhuumo dadkaada la xiriir fanaaniintaad jartay daa dadka la hadal adiguna walaalow intii aad soo waxay karto oo aad sidii mara waxaad ugu wareegsan karto oo hadba meel u jiido karto oo hadba badda lugaha u geli karto oo hadba aad kor u qaado u wareejin karto muruqaanta ku geli lahay iska dhig gabadha intaad wadi karto waa wade aad iyo aad baad mahadsantiin muuqaalkayga hadduu soo gaaro walaalow farxiyo ga gaarsii baaqaan maantay farxiyo ku socda waa sixirantay gaarsii inaan gacanta alla kaa goyn inaan qola ilaahay ku sixirta kugu ridin muuqaalkan haagran gabadha waa dhiban tahay gurmad walaaltinimay u baahan tahay soomaalinimay u baahan tahay waa fanaanadanadii ninkaan ka dhigno aad iyo aad baad mahadsantiin reer warkalkaal waayahan ismaanaan arkin waa idin salaamaya shan farood iyo calacala idin salaamaya